munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyey 16 guuradii ka soo wareegtay markii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka qaatay xorriyadiisii dowladdii Ingiriiska ayaa lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco Salaadiin Cuqaal dhalinyaro waayeel waxgarad waxaana laga sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo maray waxaana madaxdii kala duwaneed halkaasi ka hadashay hadalladeedii ka mid ahaa sida tan waa Juun gumaysta Ingiriiska waa maalintaynu kala wareegnay xorriyadeena waa maalin taariikh ku dhisan waa maalintaynu xorownay calanka laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah ku taalo waa maalintii aynu dhalinay walaw mar sursuuri naga galay waynu guulaysanay lixdankii baynu isku tuuray saxiibay noqonay waa ka cali sugna ka heesayale daraartii walaalkii nuunisee hortinashato masoo jawaabay hay dadkii markii gumaystaha la saarayay waddooyinka ku qorayay gumaysta doori mayno waxaanu ahay kuwii harka galay ama duhurka lalahaa seexan waa baatiina madaxa laga xiiray waxaanu ahay kuwii dhibaatooyinkii rajiibku geystay wax badan uga soo taagna munaasabadan maanta aynu isugu nimino mid baan ka odhanayaa qof kasta oo caqli leh oo Somalilandna mid dardaaran baan odhanayaa oo ay ugu horeeyaan madaxda maanta ayna xukumaysa qolada mafacada Somaliland qadaad ka liqday mid baan odhanayaa waa tan la sheegayo qolo maanta xamar ka qabanaysa xaflad teelna lagu jilaayo waxaan leeyahay waxaan ka joogaa halka gabaygii Faarax Nuur rakaa tagay rafiiqnimaatiin tala laga reebay meelaan laga rabin dhaal ma sii raaco waxaan sheegayaa in ilaahay barwaaqo iyo baraare ayuu na siiyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax naga maqan Somaliland maanta wax ka maqan ma jiraan sidaa ayaanu anagu ku qanacsana cid wax naga maqan ma jiraan munaasabadan maanta lagu xusaayo sanad guuradii 16aad ka soo wareegtay maalintii xornimada Somaliland dib u la soo noqotay 26 Juun waynu soo dhaweynaynaa waynu ka mahadnaqaynaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu inagu siiyo baraare iyo nabadgelyo iyo bashbash ayaynu ilaahay ka rajaynaynaa maanta waa maalin qiimo weyn waa maalmaha kale ka qiimo weyn waa maalintii anigu uqaasha iyo dadkii lahaa xamar baa laga dabaaldegaya oo la leeyahay 26 Juun aniga waxaan iin sheegayaa nin fadhigaada arko looma soo joogsado nin gurigiisa gubadayo maxaad kala taagsadaysaa saaka waa yar cadhaysan oo waxaan leeyahay waa nimanka maxay idin daba dhigay fadhatadii ay fadhaysteen ay jiideen ee ka hadhi laayeen banaamsan aanu wax kale oo imika ku hadhay oo inaga doonayay aanu ma garanayo wabiya ma leeyahdeen wax kala ma leeyahdeen waxa idin daba dhigay waa qaninimadii ay fadhataysteen baa ilaa haddayna daba wada ilaahay baa mahad iska leh waxaynu u dabaaldegaynaa oo halkan isugu keenay waxa weeye 26 Juun sidii horeba loo sheegay oo aynu ka xorownay gumaystihii Ingiriiska aynu ka xorownay oo calanka maanta aynu harsanayno ilaahay mahadii weeye furihii koobaad ee aynu qaadanay ay ahayd waa 26 Juun waa sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii aynu qaadanay calankii Ingiriiska aynu kala wareegnay oo ay ka soo wareegtay 61 sano calanka maanta aynu xusayno maalinta aynu xusayno waxaynu uga soo halganay inaynu kala wareegno calan xornimo Ingiriiska helo waynu helay gacantu inaga galiyay waxa ay nagu tagtay oo labaad inaynu mar labaad calankii u halganno calanka maanta aynu dabaal degayno inaynu mar labaad u halganno haddaba dhalinyarada daada yar waxaan leeyahay weli qarankiinu wadi jecel yahay taariikhdaas waxgaradkeeni ka soo dhawaajiyey ayaa calanka tawxiidku ku xusan yahay loo soo maray waanu idiin gacan haadinaynaa waxaan leeyahay dhalanteed iyo malaawaal laydin tumin u ducaynayaan mahadsantiin leeyahay dhaqaatiirtii nolosha cusub daweysay talaalkan aan lagu talaalay ciddii ka qayb qaadatay waxaan idinka sugaynaa waa garab istaag iyo
nolosha si fiican u socota taariikhdeenna waxay kaga jirtaa maanta baal dahaba waxaan rajaynayaa oo marka koowaad iyo marka labaad baan u hambalyeynayaa guud ahaan reer somalilan gaar ahaan reer togdheer shacab weynihiisa iyo madaxdiisaba waxaan leeyahay hambalyo sanad guuradeeda insha allahu tacaala ilaahay aynu ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo xafladan maanta isugu nimi waa ujeedkeedu waa xusitaanka maanta waxaynu xusaynaa 61 guuradii ahayd maalintii calanka somalilan laga taagay ee u horeysay waxa Soomaali ku hadla calan ay leeyihiin ahayd maalintii koowaad ee la taago calankaas waxaynu ku taagnay halkan dheer oo aynu iskaga kicinaynay gumaysigii Ingiriiska waxaana aftal u ahayd ama aabiyooyo halkan ka reer togdheer baa u ahaa hadday tahay gaaladii lagu laayay halkan hadday tahay gobonnimo doonkii la bilaabay Siciid Cali Cusmaan Xalays telefishinka caalamiga ee gobonnimo magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer